Israa'iil ayaa uga digtay Lubnaan in ay si adag oo aan naxariis lahayn u garaaci doonto haddii ururka Xisbullah uu ku lug yeesho dagaal kasta oo dhexmara Mareykanka iyo Iiraan, sida ay sheegeen mas'uuliyiin Lubnaaniyiin ah. Israa'iil ayaa fariin dadban u dirtay Lubnaan, taas oo ay ku sheegtay in ay si culus u beegsan doonto dalkaas oo ay ku jiraan kaabayaasha rayidka sida garoonka diyaaradaha haddii ururka Xisbullah uu ku lug yeesho dagaal kasta oo dhexmara Mareykanka iyo Iiraan, sida ay Talaadadii sheegeen laba mas'uul oo sare oo Lubnaani ah. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo madaxtooyada Lubnaan midkoodna si degdeg ah uguma aysan jawaabin codsiyo warbaahineed oo lagu dalbay ama looga dalbaday faallo. Dhanka kale, Iiraan iyo Mareykanka ayaa lagu wadaa in ay yeeshaan wareeg saddexaad oo wadahadallo la xiriira barnaamijka nukliyerka, kuwaas oo Khamiista ka dhici doono magaalada Jenefa, sida uu Axadii sheegay wasiirka arrimaha dibadda Cumaan Badar al-Busaydi. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo ay sii kordhayaan walaacyada laga qabo suurtagalnimada isku dhac militari oo dhexmara labada dal ee sida weyn isugu haya siyaasadda gobolka. Israa'iil ayaa dharbaaxooyin culus gaarsiisay ururka hubeysan ee Xisbullah oo ay taageerto Iiraan intii lagu jiray dagaalkii 2024. Waxay dishay hogaamiyihii ururka Xasan Nasrullah iyo kumanaan ka mid ah dagaalyahanadiisa, waxayna burburisay qayb weyn oo ka mid ah hubkoodii iyo awooddoodii militari. Ururka Xisbullah oo ah urur Shiico Muslim ah waxaa la aasaasay sanadkii 1982, waxaana dhidibada u taagay ciidanka ilaalada kacaanka ee Iiraan. Hogaamiyaha cusub ee Xisbullah Naciim Qaasim ayaa khudbad uu bishii hore ka jeediyey telefishinka ku sheegay in ururkiisu uusan dhexdhexaad ka ahayn xiisadda u dhaxaysa Washington iyo Tehran, isla markaana uu yahay bartilmaameed ay suurtagal tahay in weerar lagu qaado. Wuxuuna yidhi, waxaa naga go'an in aan isdifaacno, waqtiga ku habboon ayaan go'aansan doonaa sida aan u dhaqaaqayno, ha noqoto inaan faragelinno ama inaan ka baaqsanno. Sidoo kale, sarkaal ka tirsan dowladda Mareykanka Department of State ayaa Isniintii sheegay in Mareykanku uu bilaabay inuu kala baxo dhaqaalaha aan daruuriga ahayn ee dowladda iyo xubnaha qoysaskooda ee u qalma safaaradda Mareykanka ee magaalada Beirut, taas oo muujinaysa walaaca sii kordhaya ee xaaladda amni. Geesta kale, ciidamada militariga ee Mareykanka ayaa fuulay markabkii saddexaad ee shidaal sida, kaas oo ku sugnaa badweynta Indiya kadib markii dabagal ku hayeen safarkiisa tan iyo markii uu soo baxay ama ka soo baxay badda Karibiyaanka. Ciidamada militariga dowladda Mareykanka ayaa fuulay markabkii shidaalka ahaa ee saddexaad ee lagu ciqaabay kadib markii dabagal iyo raadraac ay ka sameeyeen markii uu ka soo baxay badda Karibiyaanka una soo gudbay badweynta Indiya, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Pentagonka Talaadadii. War ka soo baxay dowladda Mareykanka ama gaar ahaan qaybta Southern Command oo lagu daabacay baraha bulshada ayaa lagu sheegay in ciidamadu habeenkii ay fuuleen markab la yiraahdo Bertha iyaga oo sameeyay howl loo yaqaano Right of Visit Martin Introduction and Boarding, taas oo micnaheedu yahay in ay xaq u leeyihiin in ay booqdaan ama ka baaraan degaan kuna xiriiraan doonta. Qoraalkaasi waxaa lagu sheegay in markabku uu si ula kac ah ugu cararay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in doonyaha shidaalka lagu soo rogo karantiil gudaha badda Karibiyaanka haddii ay waddanka Venezuela ama dalal kale oo la ciqaabay ka dhoofiyaan shidaal sharci darro ah. Dhowr sannadood ayay Venezuela wajahaysay ciqaab dhaqaale oo Mareykanku ku soo rogay batroolka ay soo saarto, taasoo keentay in markabyo badan oo la sheegay in ay si qarsoodiya u socdaan ayna isku dayayaan in ay shidaalkooda geliyaan suuqa caalamiga iyagoo isticmaalaya shahaado jahwareerin ah. Markabka Bertha waxaa lagu diiwaangeliyey calanka jasiiradda Cook, waxaana lagu soo rogay ciqaab Mareykan la xiriira sida laga soo xigtay bogga xafiiska maaliyadda ee Mareykanka ee ka hortagga hantida shisheeye. Fiideo uu soo bandhigay Pentagonka ayaa muujinaya in diyaarado militari oo Mareykan ahi ay u duulayeen dhinaca markabka, taas oo muujinaysa sida ay ciidamada u hiigsanayaan doonyahaasi. Ma cadda ilaa ay hadda
haddii markabka Bertha si rasmi ah loo afduubay ama lagu weeraray gacanta Mareykanka, balse tallaabadani waxay qayb ka tahay dadaalada ballaaran ee lagu doonayo in lagu joojiyo shidaalka sharci darrada ah ee lala xiriirinayo Venezuela. Ugu dambeyntii, Yurub waxay ku dhaaratay in garab adag oo aan kala go' lahayn la sii ahaan doonto Kiev. Dad badan oo Ukrainiyiin ah ayaa dareemaya kabuubyo iyo rajabeel iyadoo la daala dhacayaan dagaalka uu Ruushka ku hayo dalkooda. Gudaha Ukraine laga bilaabo haweeney waayeel ah oo iibisa ubaxa ilaa caruur dugsi u socota oo baaskiil sugaysa. Qof kasta wuxuu si dareen u dhow u garan karaa khatarta soo socota marka digniinuhu ka soo dhacaan Telegramka, nooca diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, gantaalada iyo wadooyinka ay marayaan. Waxay u noqotay wax ay si dabiici ah u fahmaan iyagoo aan xitaa si gaar ah uga fikirin. 4 sano oo dagaal ah kadib, dadku mar dambe sariiraha kama kacaan marka seeriga digniintu yeedho. Digniinuhu aad bay u bateen, badankooda waxay yimaadaan saq dhexe ama aroortii hore. Mararka qaarkoodna ma sahlana in gabaadada la galo. Dadka si fudud tamar dambe uma hayaan. Marka la weydiiyo rajada xabad joojin, jawaabta inta badan la maqlo waxay noqotay maalinba maalinteedii ayaan iska qaataa. Oraahdan waxay xambaarsan tahay quus iyo nolol ku dhisan sugitaan aan hubin waxa beri imaan doono. Ruushka oo aaminsan in reer galbeedku iska indhitarayaan danihiisa, khabiir ku takhasusay siyaasadda arrimaha dibadda ee Ruushka Andrew ayaa sheegay in arrintani dhulka aysan ahayn tan ugu muhiimsan ee dagaalkan. Isagoo la hadlayay Al Jazeera kana waramayay magaalada Moscow wuxuu yiri, dabcan waa wax ay hoggaanka Ruushka u soo bandhigi karaan guul ahaan iyo in Ruushka helo 4 gobol oo dheeraad ah iyo malaayiin qof oo kale. Wuxuuna intaasi ku daray in hoggaanka Ruushka uu ku dooday in reer galbeedku iska indhitarayaan danaha Ruushka, isla markaana Ruushka laga riixay oo laga fogeeyay nidaamka amniga Yurub. Sida uu sheegay, Moscow waxay aaminsaneed in isbahaysiga NATO uu ku soo siqayo xuduudaheeda, arrintaasina ay khasab noqotay in la joojiyo. Horumaradii ugu dambeeyay dagaalkan, Ruushka ayaa sheegay in dagaalku uu sii socon doono ilaa uu ka gaaro himilooyinkiisa. Xogayaha guud ee NATO Mark Rutte ayaa sheegay in Ukraine ay u baahan tahay gargaar militari ilaa iyo dhiigga uu joogsado. Sirdoonka dibadda ee Ruushka ayaa ku eedeeyay Faransa iyo United Kingdom inay qorsheynayaan in ay si qarsoodi ah hub nuclear ugu wareejiyaan Ukraine. Midowga Yurubna wuxuu sheegay in uu sii wadi doono taageerada buuxda ee siyaasadeed, dhaqaale, bani'aadamnimo, militari iyo diblomaasiyadeed ee Ukraine oo ay ku jirto gargaar dhan 106 bilyan. Boqortooyada Midowday ayaa sidoo kale ku dhawaaqday gargaar ka badan 40 milyan. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in uu aad uga shakisan yahay suurtagalnimada nabadda degdega ah, isagoo tilmaamay in dhinaca Ruushka aysan ka muuqanin rabitaan dhab ah oo nabad lagu gaaro.